tan maxay tahay danta laga leeyay waxaynu u joognaa halkan maxay tahay rabbi subxaanahu wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa miisaan dhaba waynu ku qiimaysanno fawska ilaahay wuxuu qur-aanka ku leeyay kullu nafsin daa'iqatu lmowt wainamaa tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaamah faman zuxzixa can الnaari waudkhila aljannata faqad faaz wama alxayaatu اddunya ilaa mataacu اlguruur ilaahay qur-aanka wuxuu leeyahy naf waliba way geeriyoonaysaa noloshu tan la joogaa wax sii soconaya maaha mahmaa kaana ladayk min maalin wa sulطatin wa nicmatin waa tegaysaa baa layidhi wax kastoo agtaada yaalla nooc kastaba uu yahay waad ka tegaysaa waad geeriyoonaysaa baa lagu tilmaamay wainamaa tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaama waxaa laydin dhammaystirayaa waxaa shaqaysateen baa ilaahay leeyahy maalinta qiyaamaha adduunka haddii wax lagaa siiyo waa dhadhansiin waa lagu dhadhansiiyey wax weyn maaha laakiin wixii aad shaqaysatay cimrigaaga aad ku bixisay insaanku ra'su maalihi waa sanawaadkuu nool yahay wixii aad shaqaysatay waxaa lagu oofinaya lagu dhammaystirayaa aakhira baa rabbi leeyahy subxaana wa tacaala yowma alqiyaama sidaa awgeed waxaa lagu xidhayba miisaanku inuu labadan eray yahay faman zuxzixa can الnaar waudkhila aljanna faqad faaz ninkii naarta laga dhufto ee naarta la weydaariyo ee janno la geliyaa kaas baa guulaystay baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala guusha dhabtaa qofka gaadhay waa qofka kan markaas aayadda ilaahay haddana wuxuu ku gebagabeeyey wama alxayaatu اddunyaa ilaa mataacu اlguruur nolosha adduunna ma aha mid kadsani waxuu birbidhsado mooyaane yacni nolosha adduunyo waa mataac laakiin yay mataac u tahay ee ilmaqruur ku la kadiyey ku aan caqliga si fiican u isticmaalin baa tan nafmooda waa inaynu fahnaa markaa noloshan aynu joogno maxay macno samaysaa qur-aanku wuxuu inoo sheegayaa noloshan inay tahay imtixaan waa mowducu ibtilaa wax kasta oo nolosha intaad joogto kugu soo baxaana waa su'aal jawaabteeda la sugaya waxaad ku qorto whatsoever haddaad caafimaad qabto waa su'aal